linaya waxaad moodaa in qori lagu hayo oo la dili rabo. wiilkan dhalinyarada ah waxa uu caadistay isticmaalka geemka loo yaqaano PUBG-ga. geemkan waxa uu sameeysan yahay qofku waxa uu wadanayaa qoray waxa uu la dagaalamayaa ciidan iyo dad kale. haddaba wiilkan maskaxdiisii oo idil waa ay marantay waxa uu maanta u dhaqmayaa sidii qof waalan oo kale. waxaana maskaxda iyo sidoo kale waalidan haysto u sabab ah in uu wiilkani caadistay deelista geemka loo yaqaano PUBG-ga. haddaba wiilkani waxa uu iminka ku xirxiran yahay gurigan hortiisa iyadoona silsilad weyn looga xiray lugaha iyo sidoo kale gacmaha. dhammaan waxa laga xareeyay moobiladii uu isticmaali jiray. hase yeeshee qof kasta oo guriga kula nool waxa uu kula dhagayaa moobilkiisa. moobilka oo loo garaysan oo loo ku xiran yahay ayuu u moodaa in uu ku ciyaarayo geemka PUBG-ga. waxaana xilliyada dambe ee saqda dhaxal la maqlaa isagoo ku hadaaqayo hadalla ay ka mid yihiin ha idilin, war ninka dila, war dhiig isiya iyo waxyaabo kale oo la mid ah. hase yeeshee faamilkiisa oo wiilkana nool yahay waxay sheegeen inay ku qabaan dhib fara badan celceliskiisa iyadoona si maalinle ah loo celiyo. haddaba ninkani ilmahii xaafadda joogay iyo waalidkiisaba iyo dadka la dhashtaba waxa uu ku dhibay inuu moobiladoodii ka dafo oo aysan isticmaali karin. waxba ku qaban maayo, kaliya sidii inuu geem ciyaarayo ayuu labada gacmood ku qabanayaa kadibna waxa uu ku qaylinayaa hadalladan. si maalinle ah ayuu dhibkiisu u soo laalaabtay iyadoona had iyo jeer lagu arko isagoo sameynayo waxyaabahan foosha xun. wiilkan la joogo oo ka muuqda muuqaalka oo nala hadlay waxa uu sheegay in wiilkan la dhashto uu ahaa nin dhalinyaro ah oo wax baranayo kuna jiray heerka koobaad ee jaamacadda. hase yeeshee noloshii iyo sidoo kale mustaqbalkiisii quruxda badnaa uu mugdi geliyay isticmaalidda iyo sidoo kaleeta inuu balwad ka dhigtay geemkan loo yaqaano PUBG-ga. haddaba wiilkan markiisi hore waalidiintiisu ay la hadli jireen oo isaga oo caafimaad qaba ayaa xilliyada dambe ee habeenkii waxa uu ciyaari jiray geemkan isagoona ku qayli jiray waan dhiigbaxayaa iyo sidoo kale dagaal inuu ku jiro oo kale, war ninka dila iyo waa uu dhuumanayaa. hase yeeshee waalidiintiisu mar walba waxay ku dhihi jireen war ka joog waxaanaad ciyaarayso, sidii qof waalan ayaad u dhaqmaysaa. hase yeeshee maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah ma uusan dhegaysan waalidiintiisa isagoona iska sii watay howshii iyo sidoo kale waxyaabihii uu sameynayay. hase yeeshee taasi waxa ay mugdi gelisay ama maanta waxa uu wiilkani geed ugu xirxiran yahay isticmaalidda iyo caadaysiga dheelidda geemka loo yaqaano PUBG-ga ama PUBG-ga sida ay Soomaaliduba u taqaano. haddaba wiilkan iminka maskaxdiisii iyo caafimaadkii uu qabay waa uu doorsoomay oo geed ayuu ku xirxiran yahay iyadoona marka ay faamilkiisu naftiisa uga cabsadeen ay uga saareen dibadda guriga si naftooda ay uga ilaaliyaan. haddaba waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo caadaystay dheelidda geemkan. runtii waxaan leeyahay waa inaad ka talidaan caafimaadka maskaxdiina. wiilkan dhalinyarada ah iminka sidii qof waalan ayuu dhaqmayaa, bal eeg sida uu moobilka u haysto. moobilku waa uu loo garaysan yahay oo xilligani geem ma ciyaarayo. hase yeeshee haddii aan taleefanka loo dhiibin sidii qof waalan ayuu u qaylinayaa, ma aamusayo, dadka oo dhan buu leynayaa. waa in taleefan lagu mashquuliyaa oo gacmaha loo geliyaa. sidii qof waalan ayuu isla tuurayaa, inuu geem ciyaaraya camal buu hadba dhinac isku tuurayaa. haddaba waxaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ka digtoonaada falalkan guracan ama waxyaabaha aad sameynayaan waxaa laga yaabaa in caafimaadkiina ay dhibaato u keeni karto.